bismillaahi raxmaani raxiim. halkani waa idaacadda codka qaxootiga. 1992 markii burburkii Soomaaliya uu dhacay oo ay dhamaatay xukuumaddii dhexe ee Soomaaliya ayaa waxay dadka inta badan ay u soo qaxeen wadamada dariska la ah dalka Soomaaliya. wadamada ugu badan ee Soomaalida u qaxday waxaa ka mid ah sida wadanka Kenya iyo Yemen. tira aan ku qiyaasnay ku dhawaad nus milyuun Soomaali ah ayaa waxay u soo qaxeen wadanka Yemen, kuwaasoo markii ay Yemen yimideen dhibaatooyin fara badan ay runtii oo dhinaca luuqadda ah halkaas ay kala kulantay. si kastaba ha ahaatee dhibaatooyinkaasi kuma aysan ekayn dhinaca maciishada oo keliya ama nolosha, waxay kaloo ay saamaysay dhinaca tacliinta ama waxbarashada. sida aad ka warqabtaanba xukuumaddii Soomaaliya ee 1992 burburtay, manhajkii wax ku dhigi jirtay waxay ahaayeen manhaj dhinaca luuqadda afka Soomaaliga ah. waxay wax ku qaadanaya arday Soomaaliyeed oo wax ku baranaysa dhinaca luuqadda Carabiga ama Englishka, inkastoo ay ahaayeen manhajkaasi manhaj fara ku tirisa. sidaas daraaddeed 1992 markii ay Soomaalida u soo qaxday dalka Yemen ayaa xeradii ugu horreysay waxaa laga furay magaalada Cadan oo lagu magacaabi jiray Madiinatul Shacab. xeradaasi waxaa maamulaya hay-adda qaxootiga qaranka ee marka magaceeda lasoo gaabay loo yaqaano UNHCR. ayaa waxa ay bilowday in ay dardar gelisaa ama taabagelin ay ku samayso dhinaca waxbarashada qaxootiga Soomaaliyeed. si kastaba ha ahaatee 1992 bishii saddexaad ayaa waxaa laga furay xerada Madiinatul Shacab iskuul qaxooti Soomaaliyeed oo loogu magac daray iskuulka qaxootiga Soomaalida ee Madiinatul Shacab. iskuulkaasi waxaa manhaj looga sameeyey in lagu baro dadka Soomaalida ah afka Soomaaliga, hase yeeshee dhibaatooyin lala kulmay dartood ayaa waxa ay markii dambe loo bedelay in manhajka lagu dabaqo manhajka Yementa, maadaama ardayga uusan marka uu tago iskuullada dowladda Yemen aansan lagu qaadanin wax af Soomaaliya. si kastaba ha ahaatee 1993 ayaa si dhaba waxa ay arday fara badan oo Soomaali uga qalin jebiyeen iskuulka qaxootiga Soomaalida ee Madiinatul Shacab ee Cadan, kuwaasoo markii dambe lagu wareejiyey iskuullada Yementa ee ay maamusho wasaaradda waxbarashada ee dalka Yemen. 1994 ayaa iskuul qaxooti Soomaaliyeed waxaa laga hirgeliyey magaalada Sanca ee dalka Yemen, kadib markii la arkay in baahi fara badan loo qabo dhinaca tacliinta. ardayda Soomaalida markii ay tagaan iskuullada dowladda Yemen runtii waxay kala kulmaan dhibaatooyin fara badan oo dhinaca luuqadda ah, taasoo ay keentay in ardayda inta ugu badaniba ay dhacaan oo ay ku laabtaan sanad dugsiyeedkii. sanad dugsiyeed kasta oo bilaabmo waxaa lagu arkayey muuqaalkii sanadkii hore ama ardaydii sanadkii hore oo dhex fadhiso oo u badan Soomaali, taasoo keentay in dhinaca luuqadda uusan ardayga waxba ku fahmeyn, maadaama manhajku wax ku soo qaatay uu ahay manhajkii afka Soomaaliga. taas ayaa waxaa marka laga sameeyey in la taabageliyo iskuul ardayga uu wax ku barto afka Carabiga oo ay ku sharaxaan macallimiin Soomaaliyeed. 1994 ayaa dowladda Yemen waxa ay ka fariisatay in la furo iskuul qaxooti Soomaaliyeed oo markaasi ay dadka Soomaalida ahi ay ku bartaan afka Carabiga oo ay u dhigaan macallimiin Soomaaliyeed, kadibna ay u soo gudbiyaan iskuullada kale ee Yementa. ardaygii oo markaasi mustawa ahaan dhisan ama micni aqoon ahaan ka dhisan dhinaca ee luuqadda Carabiga ayaa waxaa loo gudbinayay in la geeyo iskuullada dowladda Yemen si halkaasi uu la sii jaan qaado ardaydii kale ee wax ku baranaysay afka Carabiga. taasi runtii waa lagu guulaystay kadib markii muddo dheer la sameynayay istiraatiijiyad loogu talagalay in ardayda Soomaaliyeed kor loogu dhigo tacliintooda iyo aqoontooda intaba. iskuulkan qaxootiga Soomaalida ayaa markii ugu horreysay waxaa laga hirgeliyey xaafadda la yiraahdo Sharataciz, kadibna halkaasi uu kusii ballaartay magaalada Sanca. maamulka iskuulka oo magaciisa la yiraahdo Cabdiqadar Maxamed Cali Daqare ayaa runtii waxyaabo fara badan iskuulkaasi ka geystay dadka Soomaaliyeedna fahamsiiyey waxtarka iyo waxqabadka uu leeyahay iskuulka qaxootiga Soomaaliyeed ee Sanca. ku dhawaad in ka badan ilaa 10,000 oo arday ayaa la dhihi karaa sanadihii ugu dambeysay ayay ka qalin jebiyeen iskuulka qaxootiga Soomaaliyeed, kuwaasoo qaarkoodna la baray tacliinta kala gedisan ama farsamooyinka. qaar ka mid ah ardayda ay ku shaqaystaan tacliinta ay ka qaateen iskuulka qaxootiga Soomaaliyeed ee Sanca. iskuulka waxyaabaha uu dhigo waxaa ka mid ah manhajka Yementa iyo weliba manhajka Soomaaliga, taasoo ay dadka marka ay qaataan ama ardayda marka ay qaataan kadibna loo gudbiyo iskuullada Yementa, halkaasoo ay kula qabsadaan manaahijtii kale ee ka taabacsanad wasaaradda waxbarashada ee Yemen.
iskuulka kuma koobno oo keliya inuu dhigo luuqadaha ama kuma koobno inuu keliya uu dhigo macnaha maadooyinka cilmiga. iskuulka waxyaabaha kale uu dhigo waxaa ka mid ah sida computeriska. waxaa kaloo ka mid ah inuu iskuulka uu dadka baro barnaamijka caafimaadka, iscaafaat al awliyaad ama wax loo yaqaano first aidka, taasoo ay runtii dadka soomaalidu ama dhalinyarada soomaalidu ay aada uga faa'iideen. qaar ka midana waxyaabihii ay kasoo barteen barnaamijka caafimaadka ay ku shaqaystaan. ardayda iskuulka qaxootiga iskuullada la geeyo waxaa ugu isbitaalada la geeyo waxaa ugu waaweyn sida isbitaalka towra, isbitaalka sabciin, isbitaalka jamhuuri iyo weliba mustashfa alyemeni walalmani. kal hore inkastoo ardaydii hore la geeyey isbitaal hadda aan shaqaynin ee la xiray ee la oran jiray atadaamun. isku soo wada qabo dhammaan ardayda soomaalida ee ku ah qaxootiga dalka yemen waxyaabaha ay kala kororsadaan waxaa ka mid dhinaca computeriska oo sida hadda muuqaalkeedii kaga muuqda ay yihiin arday markaasi baranaysa dhinacyada kala gedisan ee computerka, maadaama aaladda computerku ay tahay aaladda ugu casrisan ee caalamka maantay socota ama new technology. arday fara badan oo soomaaliya oo runtii hadda ku kala nool daafaha dacalada adduunyada ayaa runtii ka qalin jebisay iskuulka qaxootiga soomaaliyeed, kuwaasoo ka qaatay shahaadooyin muhiim ah oo ay maantay mustaqbalkooda ugu aayaan. iskuulka wuxuu hadda ka furan yahay xaafadda saafiya kasoo horjeedka internetka soomaalida ee daqare, iyadoo runtii ardayda soomaalida ee halkaasi dhigtaa ay runtii aada iyo aada ugu qanacsan yihiin qaabka waxbarashada ay u socoto iyo weliba sida dardar loo geliyey waxbarashada. inkasta oo ardayda soomaalida runtii ay inta badan ay yihiin dad reer guuraa ah oo marka qaarkood arkaysid markay u dhammaadaba koorsadii ama inta ay dibloomkii dhammaystirinba ay safaro galayaan oo ay ku aadayaan ama wadamadii soomaaliya ama wadamada dariska la ah yemanta. taasi runtii waxa ay mararka qaarkood dhabarjab ay ku noqotaa iskuulka qaxootiga soomaaliyeed ee